مادة علم البشرة فصل كل حال ومع الضيافة عشان كلمة وحوكية لا عمل لدي يفوق بقرات يفوق علم البشرة والسودان حيوان كينو والسودان محمد أحمد المهدي وحو أها هجامية دينية محمد أحمد المهدي وحو أها هجامية دينية ورير السودان وحو كهمية dadkii raacsan wuxuu ku hanuuniyay dadkii raacsanaa inay dagaal jihaad ku qaadaan ama ay dagaal jihaad qaadaan dadkii isaga raacsanaa kooxihii raacsanaa markaa waxay ahaayeen hogaamiyayaashii soo maray dalka Suudaan xilligii Ingiriiska iyo Gumaysigii waxa uu markaa u halgamayay xornimada dalka reer Suudaan isaga iyo dadka raacsanaa ama dadkii ay taageerayaasha u ahaa waxa ay doonayeen ama waxay rabeen inay dagaal jihaad ku qaadaan maamulkii ka dhexeeyay Ingiriiska iyo Masaarida ee ka dhisnaa dalka Suudaan ayay doonayeen ama waxa uu ku hanuuniyay dadkii isaga raacsanaa ee taageerayaashiisa ama ciidamadii isaga raacsanaa in ay dagaal jihaad ku qaadaan dadkii dowladda Ingiriiska iyo dowladda Masaarida oo xulafo ah oo markaa waddanka taladiisa haystay oo la isku oran jiray Anglo-Egyptian waxaana la isku oran jiray Ingiriiska maamulka Ingiriiska iyo maamulka Masaarida waxaa la isku oran jiray Anglo-Egyptian المهدي wuxuu dagaalkii ka bilaabay Abba meel la yiraahdo Abba ayuu ka bilaabay dagaalkiisii ugu horeeyay ee jihaadka ah ee ku qaaday maamulkaas jiray Ingiriiska iyo Masaarida ka dhexeeya Anglo-Egyptian Abba oo ahayd jasiirad ku taallay webiga Niilka Cad Abba waxay ahayd jasiirad yar oo ku taallay webiga Niilka Cad waxaan ognahay Khartoum inay isugu yimaadaan Niilka Cad iyo Niilka Buluuga markaa Niilka Cad jasiirad yar oo ku taallay ayay ahayd oo 160 kilomitir ku jirtay koonfurta Khartoum meeshaasi 160 kilomitir ayay waxay u jirtay koonfurta magaalada Khartoum oo ahayd magaalo madaxdii Suudaan المهدي iyo dadkii raacsanaa waxaa loo diray marka soo qabta waxa Ingiriiska iyo Masaarida xukunka Anglo-Egyptian wuxuu u diray markii uu dareemay dhaqdhaqaaqooda iyo halgankooda uu dareemay waxa uu diray marka soo qabta si looga hortago dagaalkiisaas ballaaran ee ku soo wajahan Anglo-Egyptian maamulkii ka dhexeeyay Masaarida iyo Ingiriiska المهدي iyo taageerayaashiisa waxay galeen buuraha yaryar ee Nubia waa meel waddan yar oo waxay ahayd waddan yar oo dhexeeya Masar iyo Suudaan markaa buuraha yaryar ee Nubia ayay ciidamadii Al-Mahdi iyo ciidamadiisii galeen halkaasi oo uu ka helay taageerayaal badan oo kuwii hore kasii badan oo raacsan uu kasii helay sanadkii 1883 ayay dowladda Ingiriisku u dirtay ciidan uu hogaaminayay xilligaas 1883 dowladda Ingiriisku waxay dirtay ciidan uu hogaaminayay in sarreeyo guuto Hicks nin loo oran jiray ayay u dirtay si uu u soo qabto ama ula soo dagaalamo ama ciidanka Al-Mahdi xulufadiisa u soo jeediyo hase yeeshee ciidamadii loo diray wuxuu burburiyay ciidamadii loo diray koonfurta Suudaan iyo magaalooyinkii ku yaalay sida Darfur iyo Bahar al-Ghazal iyo Beche waxa ay qabsaday Al-Mahdi magaalooyinkii ay deganayeen ciidanka Masaarida iyo Ingiriisku waxa ee koonfurta Suudaan iyo magaalooyin kale sida Darfur Bahar al-Ghazal iyo Beche waxa qabsaday ciidankii Al-Mahdi ayaa qabsaday oo gacanta ku dhigay sanadkii 1884 Al-Mahdi iyo taageerayaashiisii 1884 ciidankii Al-Mahdi iyo taageerayaashiisii ayaa baqageliyay Khartoum waxay baqageliyeen waxa weeyaan ciidankii deganaa Anglo-Egyptian ka koobnaa ciidanka Masaarida iyo ciidanka Ingiriiska ayay weerar ku soo qaadayeen si looga cabsado baqagelin badanna uga timaado si ay ugu guuraan magaalada Khartoum hogaamiyihii ciidanka Ingiriiska sarreeyo guuto Gordon ayaa isku dayay in uu ka qaxo
Khartoum nin oran jiray sarreeyay guuto oran jiray Gordon ayaa isku dayay inuu ka qaxo magaalada Khartoum oo deganaa fadhigiisu ahaa Khartoum ayaa damcay inuu ka baxo ama ka qaxo magaalada Khartoum hase yeeshee waxaa soo weeraray Al-Mahdi halkaas oo ay ku burburiyeen ciidankiisii ama qasrigii guddoomiyaha gobolkaas guddoomiyihiisii iyo meeshii oo dhan ayay burburiyeen ciidankii Al-Mahdi iyo xulafadiisii halkaas oo ay ku jabiyeen ciidankii Gordon iyo ciidamadiisii iyo xulafada dambeeyay ay haysatay magaalada Khartoum ee gobolka ka tirinaysay isla markaana waxay dileen sarreeyay guuto Gordon ninkii la odhan jiray Gordon iyo baxsanayay ee Ingiriiska ahaa ayay gacanta ku dhileen magaalada Khartoum way qabsadeen magaalada Khartoumna way qabsadeen oo gacanta ku dhigeen waxayna ka qabsadeen ciidankii Masaarida iyo Ingiriiska ee ka tirinayay 5 bilood ka bacdi ayaa Al-Mahdi dhintay ninkii la odhan jiray Al-Mahdi ee ciidanka watay ee waddanka xoreyntiisa jihaadkiisa kusoo talagalay wuxuu dhintay dhimashadii Gordon 6 bilood ka bacdi ayuu isagoo dhintay magaalada madaxda cusbeed ee Umdurmaan waxaa ka talinayay ama waxaa markaa madax ka noqday Khaliif Cabdallah nin la odhan jiray ayaa la wareegay hogaamintiidii magaaladii Umdurmaan oo markaa ahayd magaalada madaxda cusbeed ee markaa ay samaysteen waxaa loo dhiibay ama talada qabsaday mar hadduu dhintay Al-Mahdi uu dhintay waxaa ciidankii qabsaday si aan u kala daadan halgankooda u sii wadaan waxaa qabsaday Khaliif Cabdallah nin la odhan jiray ayaa la wareegay hogaamintii hogaamiyihii cusbaa waxa uu dejiyey nidaam dowladeed hogaamiyihii cusbaa waxa uu dejiyey oo xamuud u sameeyey nidaam dowladeed oo cusub oo lagu dhaqo dalka mar haddii ay ka guureen maamulkii Ingiriiska iyo Masaaridu ay ka baxeen magaaladii waxaa markaa uu ka sameeyey maamul cusub oo iyaga reer Suudaan ay leeyihiin wuxuu horumariyey nidaamka gaadiidka iyo isgaarsiinta iyo isgaarsiinta wax badan ka qabto wuxuu isku xidhay gobollada waddanka gaadiidkiina wuu horumariyey iyagana wuxuu sameeyey wadooyinkii ayuu furay wadooyinkii dhulkii kala xirxirnaa ee kala qoqobay ayuu isku furay si ay waddanku u noqdo waddan isu socon kara ama uu xidhiidh ka dhexeeyo waxa kale oo uu dhisay ciidan ballaaran oo ka kooban ciidamada reer Suudaan si ay u difaacaan dalkooda haddii uu Ingiriiska iyo soo weeraraan iyo xulafadiisii la socotay haddii ay soo weeraraan si uu isaga difaaco waxa uu samaystay ciidan ballaaran oo difaaci kara dalkiisa casharkeennan halkaas ayuu inooga sii soconaya maanta inta laga inoogu eegyahay inta baaqiya haddana waxaynu ku dari doonaa xiisada xigta haddii ilaahay idmo laakiin waxay iga dardaaranaa ardayga inaa casharada eegtaan oo aad ka baadhaan wasabka iskuulka YouTube-ka iskuulka oo aad casharada si fiican u eegtaan oo akhrisataan waayo casharadii hore la sii daayaba si fiican umaynaan eegin umalaynaan arag wax yar baa dadka wax ka baranayo wax ka arkay intiina badan ima inaan eegin sidaa daraaddeed haddii laydin fasaxay maaha in laydin iskuulka waa ka tagteen ama uu idiin dhammaaday sana dugsiyeedka idinkulo sidaasay ku dhammaaday laydinma odhanin ee waxaa laydigu yidhi idinku oo bidqabkiina ilaalinaya iyo faydhowrkiina guryihiina jooga waxbarashadiinuna guryaha ha idinku socoto sidaa daraaddeed ayaan marba casharada idinku soo gelinaynaa meesha idinka oo aan idinku danaynayno inaad idinku noqotaan ardayda casharkooda kala socda gurigooda iyagoo halkooda jooga والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومهدسنتهين وكم مهدسنتهين دقيسي لنا يدا وشينا